inkasta oo aanu doonaynin inuu ka hadlo ganacsigiisa haddana xaqiiqdu waxay tahay ganacsadahani wuxuu sandaqadiisa oo u taala kaabiga laamiga ku iibiyaa wax walba oo dhib iyo dheefba u leh macmiishiisa laga soo bilaabo nacnaca iyo xanjada ilaa sigaarka iyo taabuuga ayuu ka iibiyaa yar iyo weyn waxaase ugu badan kuwa caba sigaarka oo halkan oo kale ka dhigta barnasiino mustaf maxamed muuse oo ah 50 jir cabidda sigaarka ku soo bilaabay da'da 20 jirka ayaa ka mid ah dhalinyarnimo ku bilaabay waxa uu kala fanay hadda kulli ma xasuus laakiin dadka aan la digana ama la jooga kulli aada ay sigaar aan sidaas ku bilaabay ka ganacsiga sigaarku wuxuu lacag adag ka bixiyaa sanad kasta jeebabka kuwa caba waxaana ila dhaqaale ka dhigta ganacsade uu ka mid yahay da'yarkan oo markiisii hore iibin jiray qaraha iyo jaadka cabdirasaaq khaliif jaamac oo ah 40 jir si ciyaar ah ku bilaabay cabidda sigaarka markii uu 15 jir ahaa ayaana ka mid ah wuxuu sheegay in sigaarku aanu had iyo jeer ku ahaan jirin dhib marka la barbardhigo jaadka kolka ay timaado ka reebtoonidiisa markii dambe waxa arkay cun jiri haddana markii dambe waxa arkay anoo ku mantagaayo oo beerka alaas meelaas marka aan jaadka aan taabtabo oo meelaas oo wax ay fariisanaayo dhakhtar aaday qaad ma cuntay waxyaalahaas la dhaqaadka iska dhaafay waa iska dhaafay kadib haddana casarkaniyo hadaa imaad habeenkii ama shaqada ay ka imaad maxaa qabtaa maxaa isku boojaysaa maxaa isku maaweelisa ilmihi imaanay dhibaayo marka ilmihi dhibkooda waxa u maleeyay marka inuu qaadka iga baabi'inayo marka loo eego mustaf way adag tahay in qof isaga haro cabidda sigaarka haddii aanu joogin deegaan ku saacida inuu ka caaganaado wuxuu saqiray inay dhibaato caafimaad kala soo daristay qabatinkiisa go'aan adag wuxuu ka qaadan karaa hadduuna arkay qof cabay sigaarkii iyo hadduuna arkay sigaarkii meelan yaalo haddii mar saaxiibadaada ama dadka ku dhashay cabayaan adina ku qasbantahay cabto ama agta lagu cabo hadaa is inuu siiso dhowr jeer markii dambe aakhirka haddana waxa saaxiibadaada dadka kula degan ama dariska haddii cabayaan adina cabto saasi u badanta waxa uu dhaco cudur asma neef qufac fara badan oo qufac joogto ah qufacay neefta waxay matay waxyaabo badan aan ku daran waxa isku day inaan joojiyo dhowr jeer haddana waa joojin waay laakiin qof walba lama aaminsana aragtidaas cabdirasaaq oo hadda tiradii badnayd ee cabidda sigaarka ku soo koobay 6 xabo wuxuu qabaa in la iska dhaafi karo waa gaarka wax oo hadda oo iga haayo amna nafsad ahaantii horta malaha joojin xageeda hadii la dhahane waa jooji karaa xataa oo ugu dambeysay bisha toon dhan xataa inaan cabina laga yaabaa oo hadda markii afka la furo oo dadka markay ay cabayaan oo niyo hal xab dhiib markii baagamundaa meelaha iska fadhiyo mustaf oo ka mid ah qurba joogta wuxuu sheegay inuu had iyo jeer u baqo mustaqbalka caruurtiisa wuxuuna soo jeedinayaa talooyin wax ku ool ula muuqda oo lagu xakameyn karo cabidda sigaarka laakiin hadda waxa ka baqaaba inay caruurta cabaan laakiin waxa ka sameyn kara aniga ma jiraan ina la hadlo ila waxa kuma fiicna caafimaadka jooji maahane wax kale sameyn kara ma jiraan sigaarka taa gaashiisa in qofka daayis lagu xiraata oo ciyaar yar aan laga gadin sigaarku gudaha Soomaaliya weligiis kama noqon sharci darro wuxuuna had iyo jeer ka mid ahaa badeecadaha halista ah ee soo aasay nolosha jiilal badan maanta oo dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee duni aan tubaako laga cunin waa muhiim in aafada sigaarka loo arko mid qaran qof iyo qoys bahalakaynaysa